ugu dambeyntiina waxaad maqashay in badan iyadoo la leeyahay haddii waxaad doonayso aad weydo waxaad ka fursan weyda ayaa la yeelaa taasna waxaa looga jeedaa arrin kasta oo kula soo gudboonaada haddaba arrintaa lafteeda ayaa waxa ay ku dhacday oo noloshiisa ku maareeyey nin dhallinyaro ah oo 27 jira oo u dhashay waddanka Ethiopia ninka dhallinyarada ayaa waxa la yiraahdaa Chokole Mempero ninkan ayaa noloshu ay aad iyo aad ugu adkaatay isagoo caruura oo aabihii uu dhintay oo agoonnimo ku soo koray hooyadiina nin kala guursaday dabadeedna waxa uu suurtageli weyday in qoyskoodu markaas ay u koraan wixii uu nolosha ku maareyn lahaa marka dambe ee waxbarasho uu ku heli lahaa wax kale iska daayo dugsigii hoose in la qoro ayaa u suurtageli weyday dabadeedna wuxuu ka dhaqaajiyay halkii hooyadii iyo ninkii guursaday adeerka uu ahaa ay joogeen oo wuxuu miciinsaday halkii ay deganaayeen awowgii iyo qoyskooda kale dabadeedna awowgii buu ninkani aad iyo aad waxa ugu dhiirigeliyay in iskuul la qoro dabadeedna awowgiina uu ka yara meermeeray oo xaaladdan u saamaxaynin intii hore markii dambe uu kala dhammaan waayey doonitaankii ama rabitaankiisii uu doonayay in iskuul la qoro ayaa dabadeedna awowgii uu iskuulkii qoray intii haddaba uu iskuulka waday ayaa waxa ku adkaatay ninkaasi dhallinyarada ah oo markaasi aad u daayaraa in uu maareeyo baahiyihii kale ee xagga noloshiisa oo markaasi ay ka mid tahay labiskii ama uniformkii iskuulka uu xidhan lahaa iyo waxoogaagii kale ee uu isku daberi lahaa dabadeedna wuxuu bilaabay inuu kabaha baalasheeyo ama caseeyo uu noqdo sidii uu tii u waday ayaa dabadeedna iskuulkii uu ku dhameeyey dabadeedna wuxuu eegay waxyaabaha suuqa leh ama mihnadaha lagu heli karo shaqooyinka waddanka Ethiopia waxa markaa uu isa siiyo isaga u soo baxday in haddii injineernimo uu barto maadaama Ethiopia ay ku tallaabsanaysay waqtigaasi iyo ilaa imikaba horumar weyn oo dhinaca wax soo saarka iyo warshadaynta wuxuu isagu iska dhaadhiciyay inuu shaqo markaba hore ka helayo dabadeedna chemical engineering buu qaatay oo uu ka qaatay jaamacadda Baxardaar ee ku taala waddanka Ethiopia gobolka Amxaarada ninkii dabadeedna markii ay noloshii kale ku adkaatay baa waxa caawin jiray jaamacaddii uu dhiganayay lafteeda oo waxoogaa ilaa $10 iyo in aan waxba dhaamina ayaa bishii la siin jiray oo markaa waxbarasho looga dhigayo deeq ahaana ardayda kale uu kula jiray jaamacadda kuwii ka jeebka roona ayaa iyaguna caawinayay haddaba intaasoo dhan wixii uu dul qaadanayay ee uu rafaadka iyo samirka iyo nolosha adag u soo maray waxay ahayd sida uu doonayay qof kasta oo bini aadamina uu nolosha ka rabo markuu saa u soo kifaaxo inuu shaqo hore ka heli doono shaqadii baa haydaba iyana jir ku noqotay oo aad iyo aad ugu adkaatay oo uu kaga soo qaadi waayey wax kale iska daaye muruqmaal buu warshad ka noqday oo ilaa $10 wax aan dhaamin inuu 10kii maalmoodba helo aduu bisha oo dhan $30 ayay ku soo ururtay inuu warshadii kaga shaqeeyo deedna tiina way u noqon weyday warshadiina uu ka dhaqaajiyey wuxuu ku noqday halkii nolosha uu ka soo bilaabay oo ahayd baalashlihii ama caseeyaha waxa loo yaqaano ninkii dabadeedna noloshiisa taasuu ku dabaraa laakiin samirkii iyo hamigii midna kama dhimanin ee maadaama uu xirfadan yaqaanay ayuunbuu iyadii dib u bilaabay waxaa daba la yaab ku noqotay qaar fara badan oo macallimiintii jaamacadda ugu dhigaysay iyo weliba ardaydii la dhiganaysay ayaa markay suuqyada ku soo maraan isagoo kabihii baalashaynaya ayay qaarna ka yara weji dadbaan oo waxay yiraahdaan ha ka naxinina qaarkoodna intay u yimaadaan ayaa waa sida isagu uu sheegay ay dhiiri geliyaan waa macallimiintii ardaydii oo xitaa haddaanay kabahoodu baalashba u baahnayn ama in loo caseeyo ayay ninkaasi ay waxoogaa ugu dhiibaan ay markaasi kabaha ka baalashaystaan baalashaynta un maaha deedna waxoogaa kalena way ugu daraan waanay dhiiri geliyaan ninkan dhallinyaradii weli quusis muu taagin waxaana uu isaga qudhiisu cashar u yahay siday la tahay dhallinyaro kale oo fara badan oo markay jaamacadaha ka baxaan raadiya wixii ay soo barteen un inay ku shaqeeyaan laakiin arrintu sidaasi maaha ee wuxuu leeyahay waqtigu hadduu ku siin waayo wixii uu markaasi ku siiyo ayaa la qaataa
حيدا تعيش وينو وغادي يغلاها